السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولية أورلاندو كورداسو فالفيكنزيو ودولية ديارديد أوردين على دقالك ودوليه أي عيدمada xoogga dalka Soomaaliyeed ku qabteen dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya waqti ay ciidamada Kuubaanku kamid ahaayeen dalalkii u soo gurmaday wadanka Itoobiya. Dowliya Orlando waxa uu ahaa maxbuus muddo ku dhow 12 sano ku qaatay xabsiyadii dalka Soomaaliya, gaar ahaan inta ugu badan waqtigiisa waxa uu ku qaatay xabsigii Laanta Buur. Waxay ciidamada Soomaaliya ka soo qabteen aaga magaalada Harar. Taliyihiisii iyo rag kaleba waxay ku dhinteen weerar gaadma aha isagana lagu soo qabtay. waxaa lagu soo xiray xabsiga Laanta Buur ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxa uu halka ku xidhnaa 10 sano 7 bilood iyo hal maalin. keligii ayaanu gooni u xidhnaa. waxa uu kamid ahaa maxaabiistii la sii daayay sanadkii 1988. waxa la geeyay magaalada Diridhaba, halkaas oo uu kula kulmay ehelkiisa iyo madaxda Itoobiya. kadib waxa loo qaaday dhinaca iyo caasimadda Havana ee wadanka Kuuba. wasiir ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Havana. waxa la marsiiyay baaritaano caafimaad iyo daaweyn u badan xagga dhimirka. markii la qabtay da'diisu waxa ay ahayd 20 sano. darajadiisa ciidan waqtigan waa gaashaan la dhexe. waxa intaas u dheer in la siiyay bilad geesi oo qaran. waa bilada geesinimada ee Jamhuuriyadda Kuuba. buug uu qoray ayuu kaga warramay sanadihii badnaa ee uu ku jiray xabsiga Soomaaliya. buugga oo ciwaankiisu yahay Reto a la Soledad wuxuu ku qoran yahay afka Isbaanishka iyo afaf kale. afka Isbaanishku waa afka lagaga hadlo wadanka Kuuba. ciwaanka buugiisan xusuus qorka ah ee Reto a la Soledad macnihiisu waa adkaysiga kelinimada ama iska caabinta kelinimada. waxa aan haddaba halkan saaxiibayaal si taxana ah idinkula wadaagi doonaa xusuus qorkaasi oo aan idiin soo turjumay. buuggan xusuus qorka ah ee duuliyahan waxa daabacadiisii ugu horeysay la soo saaray sanadkii 2003. mar kale 2009 ayaa la daabacay daabacadiisii labaad, halka mar saddexaad daabacadiisa la soo saaray sanadkii 2014. jildiga sare ee buuggan xusuus qorka ah waxa uu qoraagu u qaatay sawir muujinaya baal shimbireed oo ku dhex jira xabsi bir adag ka samaysan. waxa uu ku qaadaa dhigaya xusuus qorkan sida uu Itoobiya ku tagay, ujeedada uu u tagay, dagaalkii uu ka qayb galay iyo ugu dambeyn xabsigii dheeraa ee Soomaaliya ee uu ku dhawaadka 12 sano ku soo qaatay. ku soo dhawaada saaxiibayaal taxanaheenan oo aan filayo in aad ka heli doontaan. buugga iska caabinta caqabada kelinimada waa sheeko nololeed oo qalafsan. ma aha qiso jacayl, balse waa qiso xanuun badan oo loogu talagalay in wax lagaga barto iska caabinta dhibaatooyinka. qoraaga buuggan Orlando Cordaso waxa uu xusuus qorkan ku muujinayaa si uu idinla wadaago dareenkiisa ku aadan waqti naxariis darro weyn ay la kulmeen isaga iyo maxaabiis kale oo ku jiray muddo dheer xabsi ammaankiisu aad u sarreeyo oo ku yaala Soomaaliya. fahmidda bogagga buuggan xusuus qorka ah waa in si miyir qabta loo dhugtaa si loo fahmo xaaladda maskaxeed ee uu xusuus qorkan ku cabirayo nin dhalinyaro ah oo gudanayay waajibaad kaasi oo ku dhacay shabaga ciidamadii Soomaaliya ee ka qayb galay dagaalkii 1977 oo ay la galeen wadankaasi Itoobiya. duuliye Orlando Cordaso waxa uu aaminsan yahay ilaa maanta oo uu yahay nin weyn oo duq ah in dalka Itoobiya ee uu u tagay in uu ka barbar dagaalamaa in uu ahaa wadan iska difaaciyay gardarro. ajiib waa sida uu aaminsan yahay. markii uu Kuuba ka soo tagay waxa uu aaminsanaa in uu soo guuleysto isagoo ku qanacsanaa in si uu guul u gaadho uu dhaawacmi karo xataa la dili karo isagoo gudanaya waajibka kacaankii dawladdiisa. waxa kale oo uu aaminsanaa in aan weligii ku jiri karin gacanta hadiiba dagaalka lagu qabto, isagoo oo sheegay in uu ogaa in xeerarka caalamiga ah ee dalalka adduunku kala saxiixdeen ay fursad siin karaan. taasi oo sidaa uu filayay u dhacday ugu dambeyn 88 markii uu ku soo baxay heshiiskii ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku kala saxiixdeen in ay maxaabiista isugu celiyaan oo ay gudida laanqeyrta casi fududeynaysay. ma jirin hal calaamad oo 22 January sanadkii 1978 ii muujinaysay buu yidhi in aan wax dhibaato ah la kulmayo. waxaan dhex dabalanaynay guulihii aan waqtigaasi ka gaadhnay saaxadda dagaalka markii aanu u hiilinaynay saaxiibada Itoobiya. waxaan ku faani karaa inaan ku raaxaystay qalbigayguna ku xasilayay daqiiqadihii ugu fiicnaa noloshayda, maadaama aan si deeqsinimo leh dhiilka uga buuxsaday ammaantana looga soo diriyay Kuuba iyo xataa Itoobiya gudaheeda, iyadoo la xaqiijinayo mid ka mid ah mabaadi'da ugu sarreysa ee kacaanka waa caalamiyeynta proletarian oo ah mabdii ay ku dagaalamayeen Kuubaanku. iyada oo 20 sano oo kaliya ah aan jiray waxaan horeba u ahaa
sarkaal akaademiyadeed waqtiyadaasi ayaan ka soo baxay akaademiyadda ciidamada cirka ee dalkaasi Kuuba waxaan haystay darajo sarreysa oo dhinaca ciidamada cirka ah waxaan ka qayb galay hawlgalkaygii labaad ee caalamiga ahaa waxaan ku faraxsanaa in aan mar kale u baxay hawlgal ballaaran oo aan ka soo samaynayo waddan dibadeed iyada oo aan markii labaad dad Afrikaan ah oo aan isku mabda'nahay la soo shaqeynayo ama aan hiil u ahay waxa sharaf ii ahayd oo aan ku faanayay in la iga soo dhex doortay boqolaal duuliye oo aan isku aqoon iyo isku xirfad ahayn markii la ii diyaarinayay hawlgalka ciidamada jasiiradda Kuuba ay ku tagayeen Itoobiya ee ay kaga qayb galayeen dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya waxaan ka mid noqday guutada ciidamada cirka ee VCM madaxa kooxdaydu iyo sarkaalka hogaaminayay waxa uu ahaa sarkaalka aan waqtigaas u tixgelinayay kan ugu aqoonta badan waana gaashaanle sare Valvaro Lopez Miera maanta waa jenaraal ka tirsan ciidamada cirka dawladda kacaanka Kuuba waxa uu leeyahay sumcad weyn oo dhinaca ciidanka ah maalmahaas aanu ka soo aanbabaxaynay dalkayga Kuuba waxaan dareemayay farxad maan sawiran karin waxa aan kula kulmi doono Itoobiya iyo furimaha dagaal ee u dhaxeeya saaxiibadayda Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaaliya fikrad kamaan haysan sida ay u dagaalamaan Soomaalidu iyo xataa Itoobiyaanku waxaanu soo gaadhnay waddanka Itoobiya maalin Isniin ah waxaan xusuustaa sidiina loogu soo dhaweeyay dhammaan basaldhigyadii aanu tagnay ee ciidamada cirka Itoobiya iyo xataa ciidamada dhulka ee Itoobiya waxa aan arkay dhul ballaaran oo cagaaran oo Itoobiya ku yaala oo leh waliba harooyin waaweyn oo biyo ka buuxaan maan filayn in sidaasi ay u qurux badan tahay Itoobiya waqti badan ayaan ku bixinay diyaarinta dagaalyahanada Itoobiya muddo 2 bilood ah ayaanu la shaqaynaynay ciidamada kala duwan ee Itoobiya anagoo la yaabnay oo ku qanacnay awoodooda iyo adkaysigooda duruufaha qalafsan ee looga baahan yahay askari dagaalgelaya waxay ahaayeen kuwa caqli badan inkasta oo aanay lahayn tababarro xirfadeed oo sareeya taa beddelkeeda waxay ciidanka Itoobiya ahaayeen kuwa liita dhinaca tababarada dagaalka inkasta oo ay xaaladdu sidaa ahayd haddana waxay muujinayeen rabitaan weyn oo ah inay wax bartaan si ay u horumaraan oo dagaalka uga lib keenaan waxaan aad ugu riyaaqay markii aan arkay dhalinyaro Itoobiyaan ah oo aan waxna qorin waxna akhriin oo kaliya yaqaana sida xabadda loo rido waxaanu noqonnay macallimiin wanaagsan iyaguna waxay ahaayeen arday wanaagsan jid iyo nafba u horay maareynta takhasus adag oo ciidannimo 2 bilood ee aan la joogay askartan Itoobiyaanka ah aad baanu isku dhex galnay oo waxa meesha ka baxay isfaham la'aantii maalmihii hore muddo yar oo aan durba ku sugnaa Itoobiya waxaan la kulmay waaye aragnimo ballaaran waxaanan arkay in ay dadka xabashidu yihiin dad wanaagsan maalin maalmaha ka mid ah markii aanu muddo 2 bilood ah tababarka u wadnay ciidamada Itoobiya waxa la gaaray diyaar garowgii dagaalka aanu sida tooska ah ula safanaynay ciidamada Itoobiya ee aanu isku mabda'nahay inkasta oo uu dagaalku waqtigaasi socday haddana anagu waxaanu joognay xagga shishe iyo xiryaha tababarada iyo saldhigyada ciidamada saraakiisha Itoobiyaanka iyo kuwa Kuuba waxaanu ka sugaynay in ay soo sahamiyaan dhulka ay u dooranayaan goobo dagaal oo cusub iyo dejinta qorshaha dagaalka ciidanka cirka askarta Itoobiyaanka ahi inkasta oo ay xirfad ahaan liiteen sida aan idin soo sheegay haddana waxay ahaayeen caadiyan rag iyo haween dhalinyaro ah oo lagu soo talaalay damaca ah inay guuleystaan aniga iyo dhowr askari oo Itoobiyaan ah ayaa saacadan ku sugnayn meel cidhif ah oo ka mid ah harada weyn ee Langano waxaan ahaa mid dagaalka dareen weyn ka qaba inkasta oo aanan wax cabsi ah ka qabin dagaalka haddana saacada waxaan ku raaxaysanayay dhaqdhaqaaqa laamaha dhirta ku taala hareerada harada iyo waliba codka shimbiraha waxa socday maalmahaasi guluf ciidan oo aad u badan wararka aan ka helaynay dagaalku waxay sheegayeen in furimo badan oo jiid hore ah ay ciidamada Soomaalidu kaga awood roonaadeen Itoobiyaanka balse waxaanu aaminsanayn in aanu Soomaalida dib u celin doono oo jabin doono sidaas ayuu gabalkii noogu dhacay maalintaasi askari aanu isku Kuubaan ahayn ayaa ii soo dhawaaday waqti maqrib ah waxaanu igu wargeliyay imaatinka dhowr xubnood oo ka tirsan xarunta guud ee taliska ciidanka Kuuba waxa amarna lagu siiyay kulan degdeg ah oo aanu la yeelano saraakiisha noo timid falcelinteedii ugu horeysay waxay ahayd yaab waxaan ahaa mid yar yaaban waxaan hoosta iska weydiinay maxay idinka rabaan xilligan sawti la lahaa waxay saraakiisha ugu sarreysaa sahminayaan goobihii furinta hore ee dagaalka ee la dejin lahaa ciidankayaga inkasta oo ay jireen saldhigyada militariga ee ciidamada cirku haddana waxa la doonayay in la helo goobo istiraatiiji ah oo lagu daadiyo ciidamo isugu jira Kuubaan iyo Itoobiyaan sidoo kalena
diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya iyo kuwa Kuubaankuba ay weerar culus qaadaan annaga oo aamusan ayaan goob dhismo ah oo u dhaweyd xeradan aanu ku jirnay waxaan ugu tagnay saraakiil sarsare oo Kuubaan iyo Itoobiyaan ah Major General Obri oo Itoobiyaan ah ayaa soo dhaweeyay waxa uu si cad ka muuqato noogu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku hanjabtay in ay laban laabayso gulufka colaadeed ee dagaalka isaga oo aad moodo inuu kacsan yahay waxa uu yiri cadawgu wuxuu ku hanjabay inuu sii wadi doono gulufkooda waana inay qabsadaan goobaha dagaalka miyaan sugi karnaa taasi waa in aan wuxuun sameynaa inta markii uu yiri ayaan hoosta iska eegnay saaxiibayaal qaybtiina koobaad ee taxanaha xusuus qorka dooliyahan Kuubaanka ah ayaa lagu qabtay dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya halkaas ayaan ku joojinayaa qaybta koobaad insha Allah si maalinle ah ayaan taxanahan idin kula wadaagi doonaa haddii eebbe idmo qaybta koobaadna halkaas hay noo joogto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh